Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xalqadda 6aad ee taxanaha Falastiin. Sidee ayuu dhulka Falastiin ku lumay? Hadda waxaad isweydiin kartaa, maadaama Falastiiniyiintu yihiin mulkiilayaasha sharciga ah ee dhulkan, sida lagu caddeeyay qaybihii hore, sidee dhulka looga qaatay? Oo maxay u bixiyeen dhulkii awoowayaashood? Maxay u ilaashan waayeen dhulkooda? Dhibaatadan oo dhanba ma aysan dhacdeene. Xaqiiqdii, Sahyuuniyaddu waxay isku daydaa inay ka faa'iidaysato su'aashan aan jawaabta loo helin, si loo sharciyeeyo qabsashadooda joogtada ah ee dhulkan iyo ka qaadista Falastiiniyiinta xuquuqdooda. Sahyuuniyaddu waxay ku andacootaa in Falastiiniyiintu ay dhulkooda uga tageen iyagoo raalli ka ah, sidaa daraaddeed aysan u qalmin mar dambe inay ku soo laabtaan. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanan xukun ka gaadhin oo aanan eedayn dhibanayaasha, waa inaan tixgelinnaa xaqiiqooyinkan soo socda. Ka hor 1948, ururka caalamiga ah ee Sahyuuniyadda, World Zionist Organization, ayaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1897. Ururka Sahyuuniyaddu wuxuu markan isticmaalay wax walba oo uu haystay si uu u gaadho himiladiisa muddada dheer, taasoo ah in dadka Yuhuudda ah dhulka Falastiin looga abuuro qaran Yuhuudeed lagu maamulo sharciga dadweynaha ee Sahyuuniyadda. Hogaamiyihii ururkan, Theodor Herzl, wuxuu isku dayay inuu u fidiyo gargaar lacageed dowladdii Cismaaniyiinta ee xilligaa dhibaatooyinka badan la daalaa-dhacaysay, si loo fududeeyo soo galootiga Yuhuudda ee dhulka Falastiin u socda. Laakiin dalabkaas Suldaan Cabdulxaamidkii labaad ee Cusmaaniyiintu wuu diiday. Si kastaba ha noqotee, Sahyuuniyaddu waxay ku guulaysteen inay kordhiyaan saameyntoodii siyaasadeed ee Ingiriiska, Maraykanka, dhulka Turkigu maanta ku yaallo, iyo dalal kale oo badan. Xilligaa xaaladihii sii xumaanayay ee adduunka, gaar ahaan Bariga Yurub, waxay ku khasbeen tiro badan oo Yuhuud ah oo ku dulmaneed Yurub inay ka haajiraan si ay u helaan nolol dhaanta tii Yurub. Ururka caalamiga ah ee Sahyuuniyadda ayaa ka faa'iidaystay arrinkaa, oo wuxuu u qoondeeyay lacag aad u badan si ay Yuhuuddu dhul ku yaalla Falastiin u iibsadaan, waxayna Yuhuud badan ku dhiirigeliyeen inay Falastiin u haajiraan. Bilowgii qarnigii 19aad, tirada Yuhuudda ee Falastiin kama aysan badnayn 5,000 oo qof, oo inta badan ahaa xirfadlayaal iyo ganacsadayaal. Wax dhul ahna kuma aysan lahayn Falastiin. Laakiin markay taariikhdu ahayd 1918, Sahyuuniyiintu waxay ku guulaysteen inay la wareegaan 42,000 oo hektar oo dhulal dowladeed ah, oo ahaa qiyaastii 1.56% dhulka Falastiin. Yuhuuddu waxay dhulka ku heleen laaluush ay siiyeen shaqaalihii maamulkii dowladdii Cusmaaniyiinta ee sii baaba'aysay. Sanadkii 1918 iyo kadib guuldarradii Cusmaaniyiinta ee dagaalkii koowaad ee adduunka, xukunka dhulka Falastiin wuxuu hoos tegay gumaystihii Ingiriiska. Sidaa daraaddeed, Ingiriisku wuxuu ficil u beddelay ballanqaadkii uu Yuhuudda ka qaaday ee ahaa inuu Yuhuudda ka caawiyo dhisitaanka dal Yuhuudda loo aqoonsado oo ku yaalla Falastiin, taas oo loogu abaalgudayo Sahyuuniyiinta maadaama ay dadaal ku bixiyeen taageeradii isbahaysigii ka dhanka ahaa Jarmalka, iyo doorkii ay ka qaateen in dalweynaha Maraykan ay ku qanciyeen in isbahaysigii ka dhanka ahaa Jarmalka uu ku soo biiro. Xilligaa ayuu ballanqaadka gumaystihii Ingiriisku la galay Yuhuudda, waxaana loo yaqaanaa Axdigii Balfour ee sanadkii 1917, Balfour Declaration, isagoo Maraykankuna uu ku soo biiray dagaalka. Ingiriisku wuxuu soo saaray xeerar fududaynaya u guuritaanka Yuhuudda ee dhulka Falastiin iyo inay Falastiin dhul ka helaan. Ingiriisku wuxuu wakhtigaa oggolaaday qulqulka dadka Yuhuudda ah ee u socda Falastiin, wuxuu ku taageeray agab iyo hub bilaash ah. Ingiriisku wuxuu sidoo kale siiyey Yuhuudda ismaamul madax bannaan, wuxuuna u oggolaaday inay samaystaan ciidan boolis ah oo u gaar ah. Dhanka kale, canshuuro fara badan ayaa lagu soo rogay Carabtii maxalliga ahayd ee Falastiin. Dhaqdhaqaaqooda waa la xadiday oo looma oggolayn inay hub haystaan ama dhul helaan. Marka laga yimaado faa'iidooyinka dheeriga ah ee ay Yuhuuddu heshay iyo cadaadiska u dhigma ee Falastiiniyiinta la duldhigay, waxay Yuhuuddu heleen 180,000 oo hektar oo dhul ah sanadkii 1948, oo qiyaastii ahaa 6.67 dhulkii Falastiin ee wakhtigaa, oo ay badi ka heleen qoysaskii qaniga ahaa
ee Lubnaaniyiinta iyo Suuriyaanka. Ilaa maanta, beeraleyda Falastiiniyiintu waxay ixtiraam iyo kalgacal aad u sarreeya u hayaan dhulkooda, waxayna sameeyaan fal walba oo ay dhulkooda ku soo ceshan karaan, iyadoo xitaa dhimasho ay ku jirto. Si kastaba ha noqotee, Ingiriisku wuxuu xadiday cadadka Yuhuudda ah ee u socdaalaya Falastiin iyo helitaanka dhul Falastiin ku yaala kadib kacdoonkii weynaa ee Falastiin. Laakiin xadididani waxay socotay dhowr sano oo keliya. Qaramada Midoobay si ay uga hortagto khilaaf military oo ka dhaca dhulka Falastiin kadib markuu dhammaaday xukunkii Ingiriiska ee sanadkii 1948, waxay soo bandhigtay qorshe qaybin ah oo dhulka Falastiin looga dhisayo 2 dowladood. Tan koowaad oo ah dowlad Yuhuud ah oo maamuli doonta 54% dhulka Falastiin, oo ay ku jiraan inta badan aagaga xeebta iyo dhulalka barwaaqada ah, iyo tan labaad oo ah dowlad Carbeed oo maamuli doonta 45% dhulka Falastiin, iyadoo magaalada Qudus oo ah 1% dhulka Falastiin la hoos geyn doono xukun caalami ah. Go'aankan cadaalad darrada ah ayay qaadatay Qaramada Midoobay, iyadoo maanka ku haysa inay Carabtu ahaayeen 68.3% dadweynihii Falastiin, ayna lahaayeen 93.5% dhulka Falastiin, halka dadka inta soo hadhay ay ahaayeen Yuhuud u badan ajaanib soo galooti ah. Qorshaha qaybinta ee Qaramada Midoobay wuxuu ahaa mid cadaalad darro ah oo Yuhuudda loogu eexday, Carabtana la iskaga indhatiray. Falastiiniyiinta Carabta ahina gebi ahaanba si dhammaystiran ayay gaashaanka ugu daruureen qorshahaas gurracan. Bishii Noofembar sanadkii 1947, Qaramada Midoobay waxay soo saartay qorshihii kala qaybinta Falastiin Partition Plan, kaasoo dhaliyay iskahorimaad dhulka Falastiin oo dhan ka dhacay. 15 bishii Maajo sanadkii 1948, xukunkii Ingiriiska ayaa dhammaaday. Sahyuuniyiintu waxay ku dhawaaqeen dowladda Israa'iil ee madaxa bannaan, waxaana sii xoogaystay dagaalkii u dhexeeyay budhcaddii Sahyuuniyiinta ee samaysatay xoogagii booliska ahaa ee u gaarka ahaa xilligii gumaystihii Ingiriiska iyo dadweynihii Carbeed ee deegaanka lahaa. Dagaalkan oo goobjoog u ahaa xasuuqii ugu xumaa abid wixii ka dambeeyay dagaaladii 1 iyo 2 ee dunida, waxaa ka dhashay in Sahyuuniyaddu la wareegto 77 dhulka Falastiin, waxayna dhisteen dowlad u gaar ah. Dhulkii Falastiiniyiinta ee soo hadhayna wuxuu hoos yimid gacanta dalalka Carbeed ee dariska la ah Falastiin, iyadoo daanta galbeed lagu daray Urdun, halka marinka Qasana la hoos geeyay maamulka Masar. Intii lagu guda jiray dagaalkan, ciidamadii Israa'iil oo ka koobnaa guutooyinkii budhcaddii Sahyuuniyiinta ayaa noqday ciidanka rasmiga ah ee dowladda cusub ee Sahyuuniyadda. Ciidankan waxay fuliyeen qorshe isirsifayn ah oo loogu magac daray Plan Delayed. Qorshahan, ciidanka Israa'iil waxay adeegsadeen awood military oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee ku nool gudaha aagaga dowladda cusub ka arrimiso, maxaa yeelay waxay khalkhal gelinayaan sii socoshada Sahyuuniyadda ee juqraafiyeed iyo dadeed ee dhulka Falastiin. Ciidanka Israa'iil waxay geysteen ilaa 34 xasuuq, waxayna burburiyeen in ka badan 400 oo tuulo oo Falastiiniyiin ah, halkaas oo ay ku dileen 13,000 oo qof oo rayid ah, waxayna ku khasbeen ku dhowaad 726,000 oo Falastiiniyiin ah inay ka qaxaan guryahooda. Falastiiniyiintii ku nagaatay guryahooda waxaa loogu hanjabay in hub iyo madaafiic culus lagu gumaadi doono haddii ay joogitaankooda dhulka ku adkaystaan. Wakhtigii lagu dhawaaqay dowladda Israa'iil ee aanu maanta naqaano, dadkeeda Yuhuudda ah waxay ahaayeen ku dhowaad 700,000 oo qof, halka dadkeedii Carbeed kuwii ay u suura gashay inay guryahooda joogaan oo aan qaxinna ay ahaayeen 156,000 oo qof. Abuuritaanka dowlad Yuhuuddu leedahay oo dhulka Falastiin ka hana qaada suuragal ma aysan ahayn, waana sababta ka dambaysa isirsifaynta iyo gabodfallada noocaas ahi inay Yuhuuddu ku kacdo. Israa'iil xaqiiqdii way u hamuun qabtay dagaalkan si ay Falastiiniyiinta Carbeed uga caydhsato dhulkooda, ayna dowladnimada Israa'iil u hirgasho, maadaama ujeedooyinkii Sahyuuniyadda aysan xilligaa ku jirin in dadka Carbeed ee Falastiin la barakiciyo oo la gumaado. Dagaalkii 1948 wuxuu kala dhantaalay qorshayaashii maangalka ahaa ee Sahyuuniyiinta. Qorshihii kala qaybinta ee Qaramada Midoobay ee lagu ansixiyay qaraarkii 181 wuxuu qeexayay in dowladda Yuhuudda ah ee la soo jeediyay ay yeelan doonto 498,000 oo qof oo Yuhuud ah iyo 497,000 oo qof oo Carab Falastiiniyiin ah. Tani waxay si aad u macnaynaysaa inaysan noqon karin dowlad Yuhuud ah, gaar ahaan haddii aan tixgelinno heerka sare ee koritaanka dadka Falastiiniyiinta ah oo wakhtiga ahaa ku dhowaad 10%,
taa cagsigeeda waxay xaqiiqadu noqonaysaa inay noqoto dowlad Carbeed oo ay Yuhuuddu tiro yar ka yihiin. Sanadkii 1967 dagaal kale ayaa ka dhex qarxay Israa'iil iyo 3 ka mid ah dalalka Carbeed ee deriska la ah Falastiin. Dagaalkaas oo Carabta u soo hooyay guuldarro masiibo ku noqotay, Israa'iil waxay dagaalkan ku qabsatay 23% oo ahayd intii ka harsanayd dhulkii Falastiin, iyadoo Sinai gacan ku hayntiisa kala wareegtay Masar, halka buuraha Golan Heights-na ay ka qabsatay Suuriya. Si kastaba ha noqotee, intii ay socotay gardarrada Israa'iil ee joogtada ah iyo ku tumashada xuquuqda aadamaha, iska caabinta reer Falastiin weligeed ma aysan joogsan. Shacabka Falastiinna weligood kama aysan quusan u dagaalamidda xuquuqdooda. Haddaba, dhul intee le'eg ayuu geedi socodka nabaddu u soo celin karaa Falastiiniyiinta? Tan iyo markii 77 dhulka Falastiin ay qabsatay Sahyuuniyaddu, iyadoo sanadkii 1948 ay noqotay dhul caalamku u aqoonsan yahay dowladda Israa'iil, State of Israel. Geedi socodka nabadda ee hadda, kaas oo ku salaysan qaraarada Qaramada Midoobay, waxa kaliya oo uu ka walaacsan yahay waa inta soo hadhay dhulka Falastiin oo ah 23%, taasoo ah daanta galbeed iyo marinka Gaza. Tani waxay ka dhigan tahay in 77 dhulka Falastiin uu yahay mid aan laga gorgortami karin oo ay Yuhuuddu leedahay. Dadka Falastiin ee ka badan 4.7 milyan ee ku nool xaaladaha ka baxsan bini'aadanimada ee ka qaxay Falastiin tan iyo sanadkii 1948, iska badaa kuwa 1 milyan ka badan ee ku nool gudaha Falastiin ayaa gebi ahaanba laga saaray ajendaha nabadda ee Qaramada Midoobay. Intaa waxaa dheer, ilaa bishii Maajo 2002 iyo 8 sano oo gorgortan ah, maamulka qaranka Falastiiniyiinta Palestinian National Authority wuxuu si buuxda gacanta ugu hayay oo keliya in ka badan 17% ee daanta galbeed, 1,000 kiilomitiro isku weeran, iyo 55% marinka Gaza, 200 oo kiilomitir isku weeran, halka ilaa 25% daanta galbeed qayb ahaan la hoos geeyay xukun madani ah. Isku soo wada duubo, maamulka qaranka Falastiiniyiintu wuxuu si dhab ah u maamulayay 1,200 oo kiilomitir laba jibaaran, ama 4.4% wadarta guud ee dhulka Falastiin ee taariikhiga ah. Deeqsinimadii ugu ballaadhnayd abid ee ay Yuhuuddu samayso waxay Falastiiniyiinta ku wareejisay maamulka qaranka Falastiiniyiinta 90% daanta galbeed, laakiin Yuhuuddu waxay la hadheen magaalada Qudus oo ay ku adkaysteen inay tahay caasimadda joogtada ah ee Israa'iil. Xalqadanna maanta intaa ayay nooga eg tahay. Haddii aadan daawan xalqadii tan ka horeysayna, waxaad ka daawan kartaa linkiga hoose. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.